السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت الأواني سلامي ما شاء الله إن سومالي ميل بأجوكتو واني سلامي وحني ليه إن شاء الله ميل بأجوكتين نبض إبرواقي يقول ولاد إن شاء الله أنتنا حنوصن إلهي نعافيه أنتنا عفمت كقبتنا الحمد لله يا الله إلهي نوسياديو مسلمين all of them ميل بأجوكان وحني ليه إن شاء الله قصدان هدا عرفت اللايك يسار سبسكرايب إيدي هتا أيقو حسوبتاي channelك إن شاء الله كومنتني إيسو قر لايك إن شاء الله لايك كده دالا يعني قصدان إن شاء الله ولا له إن نقول رامر وقصدان ولا بقيب إن شاء الله دي قيب صدق قيب وديري هاي دي ودير إن شاء الله لا بقيب أيام كسر يجدونا قصدان وحي كده عضي سعودية ما شاء الله بيت إلهي بيتك الله يو كده عضي كعبدا مسمى أكتهاي مسلمين تا all of them markay iskugu imaado kacbada siba dumarka inay waxyaalo badan dhibaatooyin badan ay ku dhacdo oo ilaahay ugu talagalo nimcooyin badan ay ka helaan meesha oo ilaahay macnaha farxad ugu dhigo dhibaato badan inay ka dhacdo ma ogtahay marka insha Allah qasidan bal dhageyso insha Allah haduu ilaahay raal ka noqdo waxa jeclaa in aadna ka khibrad qaado doonteen aadna aad ka khibrad qaado doontid anna aan wax ka faa'iido insha Allah waxaan jeclahay gabadha waxay u dhalatay wadanka Indonesia ayay u dhalatay gabadhaas waxay lahayd 7 bilood waxay tiri waxaan soo aaday xajka baytullah inay duceysato ay intaysan dhalin ay farxadda ay ma sha Allah ay ayada farxsan ay baytullah ay tagto intaysan dhalin markay tagtay ay gabadhii dawaafkaas soo dawaaftay ay macnaha soo tacabtay albaabka malakad fahad ay taagan tahay ayaa waxa ku qabsaday nabar xanuunkii foosha ayaa qabsatayba gabadhii inta meel u dhaqaaqaysa malahan gabadhii waxa loogu wacay ninkii masjidka haystay meesha oo mas'uulkii ahaa ayaa loogu wacay markaas gabdhihii caawinay hilaal ahmar ayaa gabdhihii u maadeen markay gabdhihii u maadeen gabadhii dhakhtar ayaa loo intii gabdhihii dhakhtarka la wicin cunugii wuu soo dhaafayba gabadhii wayba dhashayba alxamdulillah marka dhakhtarkii ayaa loogu wacay waa la weydiiyay gabadhu waxa yiri 7 bilood dhakhtarkii wuxuu yiri dawaafkii ay daalkii badnaa ayuu ilaahay ugu bedelay ilaahay u fududeeyay ma sha Allah maysan foolanin dhibaato badan may gelin tacabkaas iyo albaabkii laga dhaqaajiyo meeshii ayay ku foolatay ayadoo nabad qabtana sidii meesha ugu dhashay alxamdulillah nimca ilaahi waaye ilaahi baa mahad iskale nimcooyinka ilaahi waa badan yihiin gabadhaas maysa ku tashanaynin inay macnaha ay gurigeeda markay aado inay dhasho ay ku tashanayso waa 2 bilood ayaa u dhinaa 7 bilood ayay ku dhashay dhakhtarkii markii la weydiiyay oo si fiican loo wareystay wuxuu yiri waa mucjiso rabbaani ilaahay baa ugu talagalay haddana wax ay qabto malahan caafimaadkeedu waa tamaam marka qisadan labaad isla qisadii waaye gabar Turkiya ah oo u dhalatay wadanka Turkiya sanadkeedna uu jiro 33 sano qisada gabadhii hore sanadkeeda laguma soo darin gabadhan wax uu ramaysan lahayn 10 sano ayaa la qabay waxay rafaadaba habeen kamid ah waxay u sujuuday ilaahi subhanahu wa ta'ala ilaahi wax la weydiisto oo maanta nimco ka badan miyaa jirto waa maya ilaahi subhanahu wa ta'ala ay gacmaha oortay ilaahi ay bariday ilaahi ay tubtay way ooysay gabadhi ilaahi subhanahu wa ta'ala wax walba uu awoodaa gabadhaas 10 sano aysan wax dhalin aysan ilaahi awlaad ugu deeqin gabadhi ilaahi xusii uur ayay lahaatay gabadhi markay uurka lahaatay subhanallah ma sha Allah aadi u faraxday waxay tiri 10 sano maadaama waxaana dhalin ilaahayna igu deeqay awlaad uur ay leedahay markaas ay waxay tiri waxaan aadayaa baytullah kacbada ayaan aadayaa gabadhaas waxay u dhalatay wadanka Turkiya waaye waxay tiri beedka Allah ayaan aadayaa ma sha Allah beedkii ilaahay aaday gabadhii markii beedka ilaahay aaday ay soo dawaaftay dawaafkii ay soo dhameysaninba ayadii meesha ku jirto oo dawaafkii ku jirto ay gabadhi fool ku qabatay meeshii ku dhacday markay meesha ku dhacday
subxaan allah ilaahay awoodiisa aad iyo aad u weyn tahay maasha allah. kacbada waxyaalo badan ayaa ka dhaco walaalayaal, anaga ma ogin, laakiin adigaan haddaa ogin maanta ogow. anigaas maanta waa soo aqristay waana soo ogaaday maasha allah. sheekada ayaan iga dhex galine qasida aan dhahay qasi waaye, macnaha sheeko waxaa la karaa wax laga sheekeeyo, laakiin tan waa qiso loo baahan yahay in qof walaalka loo soo gudbiyo. sheekana waa sheeko iska caadi lagu sheekaysto, tanna waa qiso oo jaraa'idada meel walba lasoo dhigay oo la rabo in gabdhaha walaaleen muslimiinta ah ay ku faa'iidaystaan nimcada ilaahayna. wax walba inuu ilaahay awoodo, wax walbana ilaahay inuusan diidi karo, dhaafini karo. wax walba ilaahay baa subxaana watacaala awoodo. gabadhaas meesha ayay foosh ku qabatay. sidoo kale ayadana waxaa loogu wacay mas-uulkii masjidka iyo mas-uulkii meesha joogay, waxaa loogu wacay gabdhihii kalkaaliyaha ayagana ahaayeen aa loogu wacay. gabdhihii markii loogu wacay waa la keenay hilaal axmer. gabdhihii waa loogu wacay. markii loogu wacay waxaa la dhahay gabadhan ka waramo. gabadhii waa la qaaday. markii la qaaday gabadhii dhakhtar ayaa la dhigay. meesha mayse ku dhalin, laakiin fooshii gabadhii meeshii way ka dhaqaaqaysay. gabadh dhakhtarka markii la dhigay ilaahay wuxuu ugu deeqay mataqaanin 5 ciyaal ilaahay ugu deeqay. 5 ciyaal ah waa 5 maasha allah. wuxuu ugu deeqay ilaahay subxaana watacaala 5, 3 wiil iyo 2 gabdhood ayuu ilaahay ugu deeqay. ilaahay nimcadiisa aad iyo aad u weyn tahay maasha allah. wallaahi qisooyinkan markaa dhegeystid adiga dhan maasha allah, wax walbo macnaha wax walbo marka inaad khayrka aad dhegeystay aad u fiican tahay. waxyaalo badan aad faa'iido helaysaa. intaan adiga kusoo gudbin aniga ayaa wax walba faa'iido helaayo. adna waxaan jeclahay inaa ila wadaagtid faa'iidada insha allah, adna aan heshid maasha allah. ducada iyo dhiirigelintana waa xaggiina. gabadhaas waxay heshay 5 cunug, 10 sanan ciyaal maysa haysanin. ilaahay subxaana watacaala awoodiisa aad u fiican tahay. 3 wiil iyo waxay dhashay gabadhii iyo 2 gabdhood. 3 wiil iyo waxay dhashay 2 gabdhood. markaasaa waxaa la yidhi ninkii masjidka ayaa loo wacay. gabadhaas turkiga ah waxay dhashay la yidhi 5 caruur. markaasaa waxaa la sameeyey dowladdii gabadhii waxaa la siiyey farxad, lacag badan, way farxday. waxyaalo badan ay hadiyooyin ayaa loo guddoonsiiyey sida dowladaha caalamka meel walba. waxa waaye qofka markuu ciyaal badan dhalo, dowladda markaas ay ku dhasho waxay ku leedahay xuquuq iyo xaq macnaha oo gabadhaas la siinayo. markaan ku leeyahay kacbada waxaa ku dhashtay asxaabta sharafta leh. videogu dheeraaday insha allah. ma ogtahay kacbada inuu ku dhashtay qasidaas? waxaa rabaa in part 2 insha allah aan kasoo dhigto. cali bin abi taalib inuu ku dhashtay oo maalin jimca uu dhashtay. taariikhday ahayd 13 bisha rajab uu dhashtay. haddaada ogeyn hadda ogow. qofka ugu horeeyay iyo qofka ugu dambeeyay inuu ahaa. hooyadiisa Faatmana inay jumco walbo ay tagi jirtay kacbada maasha allah. ay kacbada aadi jirtay, ay riixada saa usoo carfi jirtay, inta saa usoo qaaciso ay soo carfi jirtay maasha allah. marka qasida cali bin abi taalib waa insha allah part 2 ayaa kasoo sameynaya. way dheer tahay, ma lagu dari karo qaybtan inkasta yar inta anaa kusoo daray. marka asxaabta dadka igu xiran oo walaalahay ah oo islaamka ah, islaamnimada aan ku wadaagno, magac Soomaaliyeed aan ku wadaagno. haddii Soomaali hataa ahina Soomaalida macnaha islaam tahay wad ay daawanaysid, insha allah waxaan jeclahay subscribe-tina ii saartid, like, share, comment-iga waayo waxay iga dhisaysaa dhiirigelin ayay ii tahay. qisooyinkan waxaa ila jeclaystay gabdho walaalahay ah, maadaama aniga aan Soomaali ahay, ciyaalkeygana ay carab yihiin, maadaama wadan carabna aan joogo, in qisooyinka carabta ah waxyaalaha wax laga faa'iidi karo inaan soo geliyo oo maanta dhan macnaha aan gabdhaha walaalahay ayagana aad ugu mahadcelinayaa. aad u mahadsantiin ayaan leeyahay. fikradan ani iguma jirin, been ma sheegi kari. waxay ku jirtay dad walaalahay ah. waxay dhaheen maadaama aad wadan carabna joogtid, ciyaalkaadan ay carab yihiin, maadaama wadan carabna aad joogtid, ciyaalkaada aaboodna uu macnaha luqadda uu carabiga maasha allah yahay. waayo aniga ma aqaano carabta luqadda sida macnaha waxa markaas qisida carab ayay ku macnaha soo warinayso. waa ogtihiin in la dhageysto la turjumo ee u baahan tahay maasha allah.
asagana waxaa leeyahay aada u mahadsan tahay asaga ayaa maanta iga dhisaayo oo maanta oo dhiirgelinaayo marka gabdhaha walaalahay ayagana ay dhiirgeliyeen oo ayaga dheen qisooyinka isbuucii waa inaad maalmo noo soo gelisaa maalmana aad arrimahaada kale iyo shaqadaada kale insha allah aad soo gashataa marka aada u mahadsantihiin aan leeyahay insha allah qisadeena labaad bal qisadeena saddexaad insha allah iyadana ila sug channelkana subscribe ii saara like badan insha allah ii saara commentigana hala yaa walaalahay khayr badan ii rajeenaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu